waxaa maanta ka dhacay magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn isu soo baxaan horay noociisa dhawaanahanba lagu arag magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn. shacabweynaha kala gedisan ee ku dhaqan magaalada Buuhoole ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium Football. dadweynaha ayaa si aad shucuurtood u kacsanayd waxayna aad u taageersanayeen qodobadii ka soo baxay dhawaan shirweynaha Khaatumato ee ka soconaya magaalada Taleex una ugu weynaa qodobadaasi maamul ay yeeshaan deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn. dadweynaha aad u tiro badan oo isugu jira culimo, cuqaal, waxgarad iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa khudbado kala gedisan ka jeediyay kuwaasi oo soo bandhigay sida hagar la'aanta ay u taageersan yihiin qodobada shirweynaha Khaatumato. sidoo kale dadkaasi ayaa hambalyo iyo waliba mahadcelin u diray bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka Caabud Waaq, Badhan, magaalada Gaalkacyo iyo waliba dhammaan cid kasta oo taageertay shirweynaha Khaatumato. waxaan soo dhaweynaynaa golaha joogtada salaamaya Khaatumato shirka Khaatumo ee Taleex lagu hayo waxaan soo dhaweynaynaa salaamaynaa shirka Khaatumo lagu hayo salaamaynaa shirka waxaa la yidhaahdaa Khaatumo ducaa la yidhaahdaa kuwaan salaamaynaa intii laa ilaaha ila allahu yidhaahdaanu salaamaynaa waxaanu salaamaynaa wixii walaaladayaanu salaamaynaa shirkaa taladaa laga qaatay waa Khaatumaa la yidhaahdaa Khaatumadeedii baanu helay ilaahay noo shufeeyo noo hagaaji waxaanu salaamaynaa Khaatumaanu salaamaynaa يا مامل كقصوبان سلامينا مامل بانود كلا إله لله حاجة فرحان يا ولاد وخان دون إله لله حاجة آمين يوم كذاب كذاب وادت كمسلم كه كذاب كل وحول شغل مين يا عين بان كارورينا فرده كذي عين بان كذاب بعد يا ترى يجيبون يخلي لبس قالوا نبري حتى تاجرنا دكها ولا نضيع وحنا وشغل ما نبتجل يا نبتجل حاجة كودا حرني بالله يا أنت أصلا كم نسيت عشان اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة شكا خاتمة يدفك ينتو كل اللي يجهب وواصلامي الله يسوك كاني مدشا يشكل يا مكان كان يجوبنو يا شرف كان السلام يا بشدة كالدول ضيال علماء ضيال سلام كبعدي waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa dhammaan bulshooyinka deriska nala ah ee faraxsan shirkayaga ee ka soconaya ummadaha ama bulshooyinka iyo shacabada deriska nala ah ee ku faraxsan soo dhaweynaya shirka nooga socda magaalada Khaatumo ee lagu qabanayo shirka Khaatumo laba baan ugu hambalyeynaa una salaamaynaa tahaniyadna ugu diraynaa waxaan halkan ka soo jeedinaynaa annaga ku hadlayno magaca bulshada gobolka Cayn annaga ku hadlaynaa afkooda waxaanu ka soo jeedinaynaa halkan inaanu nahay haddii aanu nidhaahno waa taageersanahay waanu nahay taageero maahe waanu nahay shirka ka soconaya magaalada Taleex ee Khaatumo laba waanu nahay waanu filaynay waanu raacsannahay waanu nahay waxaan u sheegaynaa maamul goboleedada deriska nala ah inay ku qancaan shirka waan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa kuwa ay haystaan maamulada haystaan inaanu qabu dhisnay ayna ka leexdeen dariiqii ama ku heshiiska ahayn sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa inaanu dhisannay maamul aan u madax bannaannahay annaga ah gobollada SSC waxaan u sheegaynaa
calooshood u shaqeeya maamulada deriska nala ah ee u tustusaya inay ka waantoobaan arrintaa oo uga turaan ummadooda iyo shacabkooda inay uga turaan waxyaabaha ay ku shaqaysanayaan iyo calooshooda shaqaysanimada inay uga turaan waa noo sii socon doonaa haddii ilaahay noo shirkani iyo soo dhawayntani waa noo sii socon doontaa haddeerna waxaan ku wareejinayaa ama gudaha isku xidhka shirka dhammaantood waa mahadsanyihin waxaana ku salaamaya salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u hambalyaynaa shirka khaatumo waxaa ka soo baxay qodobada dhaxalgalka ah ee maanta waagu noogu bariyey haddaan nahay gobollada SSC shacab iyo bulsho iyo haween iyo dhammaan waxgaradba waa taageersannahay waa garab taagannahay waa taageersannahay waxaan u mahadcelinaynaa oo dhammaan aanu u mahadcelinaynaa dadkayga meesha taagan jiisiga isimada meesha fadhiya ergadii aanu dirannay waxay ka soo baxeen waajibkii aanu u dirsannay war soo sidaa ma aha waxaanu ku faraxsannahay wax kasta oo ka soo baxa dhammaan qodobada SSC ay ugu horayso maamul goboleed aan yeelanno war soo sidaa ma aha waxaan u sheegaynaa maamulada Somaliland inayna faraha nala soo gelin inayna nabadgeliyaan waxaanu nahay dadka taariikh badan daraawiish baana la yidhahdaa waxaanu nahay dadkii xornimada Soomaaliyeed dhaliyey gacanteedanu ku dhalinay waxaanu mahadcelinaynaa ergadayada maanta garatay inay masiirkii ummadda ku hoggaamiyaan hambaliyo waxaanu hambaliyaynaynaa oo kale reer caabud waa waxaan u hambaliyaynaynaa walaalaha iyaga sanaag walaalaha iyaga caabud waa Soomaali weyn baanu taageersanahay Soomaali waxaan ka codsanaynaa inay derisnimada walaaltinimada isdalka ay ixtiraamaan haddii ay ixtiraami waayaan waxaanu qaadi doonaa tallaabo aan weligood arag go'aanka ka soo baxay shirka khaatumo ee magaalada tale waxaan u soo dhawaynaynaa si qayr caadi ah oo kale iyo laaba yaanu u soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay go'aankeedii ka soo baxay ilaahay ha ka dhigo mid midho dhal ah oo taariikhda ummadda ama deegaankan wax u tara karaamadeeda iyo sumcaddeedaba muddo badan bay baaba'sanayde in ilaahay soo nooleeyo oo go'aankaasi noqdo mid hirgala dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cayn u qaabilsan maamulka Puntland Maxamuud Sheekh Cumar Xasan isagoo sheegay inuu si aad u taageersan yahay shirweynaha Khaatumo waxaana ugu baaqay dhammaan ciidamada iyo waliba mas'uuliyiinta ka mushaar qaata maamulka Puntland inay si degdeg ah ugu biiraan hoostagaana maanta wixii ka dambeeya shirweynaha Khaatumo go'aamada ka soo bixi doona waxaan ku darayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee ka mushaar qaata ama ka tirsanaan jiray Puntland ama ha noqdeen boolis ha noqdeen ama ha noqdeen ciidamada kala duwan ee maamulka Puntland u joogay gobolka Cayn inay dhammaan ka amar qaataan laga bilaabo maanta kala duwan ee rayidka waxaan u sheegayaa kuwa waxbarashada caafimaadka beeraha biyaha iyo dhammaan hay'adaha laamaha dawladda ee kala duwan ee ka tirsanaa maamulka Puntland inay hoos tagaan oo ka amar qaataan maamulka laga dhisayo magaalada meesha la Khaatumo ee degmada Taleex anigu inta maamul loo soo magacaabay waxaan ka mid ahay qof ra'iisa oo ugu dambeyn ayaa waxaa madasha lagu dabaaldegayay maamulka cusub ay yeelanayaan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn lagu soo afmeeray buraanbure iyo waliba gabayo aad uga ilmeysiyay dadkii halkaasi ku muujinayay shucuurtooda waxaan inaan halka ka jeediyo iyadoo jaanisku ugu yaryahay siciroo gaaban waxaan ka halqabsaday Yuusuf Fusle
waxaan yuusuf oo dabuub gabayaan ugu daayay waayadani dibnahayga waataan ka jiray deelkii maasade magac gurina dunidaan arkiyo shiigan daalacaye docda kale dabuub laga hadla iga dahsoonay maanta dariiqii bixiyo diiradaan rabay dab markaan ka baydhiyo anoo day saamaysay mid dal joogay kii dibad jiriyo daris midkii aaday tolkayoo dariiq wada maroo daan isugu leexdaa iyagoo dantoodii lintiyo sharafti doonaya weli daayina midkay ma arag doorkan ka horoowey iyana waa dabaashaad dacdii raaciyo deeqda eebbahaye baldayaay dabaylaha wakhtigu istabakhayaane dalsankii anoo ka hadlaya dagaalkii buuhoodle anigoo dadweynaha dhammaan hadal ka soo duubay dallin dahaba oday duuqa iyo dugiyo waayeelba dumar iyo rag waa raacsannahay doorka noo dhacaye diblomaasiyiin baa fadhiga darayda waaweyne kuwa ficilku noo diray baa daara sheekadae kuwa ficilku noo diiray baa daara sheekadae mar haddii shirkii lagu dalbaday maamul lagu daaqo inaan dawladnimo muujinana door dhow la arkeeye dastoor iyo sharcina wuu imaan kala dambayntiiye baldayaay dabaylaha wakhtigu waa istabakhayaane dabagelis ninkii noqon karaa lagu duduucaaye annagoo dal iyo maallahoo dan iyo hoo buuxuna duleed kale inaan yururnaa waa damiinnime kuwii damacu noo keeni jiray gala difaac weyne dibkaa dhacay isaaqii wax badan noo darraan jireen wax buntlandna doondoonaysaa daris wanaaguune baldayaay dabaylaha wakhtigu waa istabakhayaane اللهم ناسو سياري تورون اللهم ناسيالا عرتامي قلق نودشين وحانا واقبت الكايدة ويالي للباهن تيسراعي ليس بسوني نوري دينو حرنما ليس دارسي عدوه نالا نسونا يحي على الكلمانكي Kami maya charu tolkai melu wada guru. Kami maya charu tolkai melu wada guru. Kurab kain nago kabaran bainu tuk sana. Dul bahan tau tau bakana takti bedera. Karahagi Allah bakarta kabatu taina digai. Dul bahan tau tau bakana takti bedera. Tuluda saageen qashantu manka goosana dulbahan tau barkeeno tartiibyadeera yaayna taande iyo ceebtan waa taman dulbahan tau barkeeno tartiibyadeera dulbahan tau barkeeno tartiibyadeera tarehaambe yamaanta la tubayehe calankanoo taaga cadowgii ha kala tage markii ay soo gabagaboobay banaanbax ayaa dadkii halkaasi ku sugnaa waxay socod dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Buuhoole kuwaasi oo akadgeliyay isu socodkii gaadiidka iyo waliba ganacsiga magaalada Buuhoole intii uu soconayay banaanbaxani si kastaba ha ahaatee banaanbaxan ayaa ku soo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan Axmed Cabdiqaadir Jabaan Darwiish TV